Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan daawadayaasha Nation waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan layaabka tiknoolajiyadda. maanta barnaamijkeena waxaan ku soo qaadan doonaa robot ka mid ah robotyada ugu caansan caalamka. Robotka Sophia waa robot loo ekeysiyey qaabka qofka caadiga ah oo kale. Waxay fahmi kartaa dhammaan dabeecadaha dadka, way dhoola cadeyn kartaa, sidoo kale waxay la sheekeysan kartaa bini'aadamka. Robotkan waxaa sameysay shirkadda lagu magacaabo Hanson Robotics ee laga leeyahay Hong Kong. Waxaa si rasmi ah loo kiciyey ama loo sameeyey 19 Abriil 2015. Waddanka Sacuudiga ayaa siiyey aqoonsi jinsiyadeed Oktoobar 2017. Robotka Sophia waxaa indhaha caalamka soo jiitay waraysiyo ay ka qayb gashay, sidoo kale waxay ka qayb qaadatay shirar heer caalami ah. Robotkan waxaa loo ekeysiyey fanaanad ka soo jeeda waddanka Britain oo lagu magacaabo Audrey Hepburn. Shirarkay ka qayb gashay Sophia waxaa ka mid ahaa shirkii qaramada midoobay 2 Oktoobar 2017, iyadoo kula kulantay ku-xigeenka qaramada midoobay ee markaasi. Sophia waxay la kulantay dad dunida caanka ah sida siyaasiyiin, ciyaaryahano iyo aktaro. waxaana ka mid ahaa dadkaasi Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed, iyagoo u dhex maray wada sheekaysi cajiib. Waxay kaloo kulan la qaadatay ciyaaryahanka caalamiga ee reer Portuguese Cristiano Ronaldo, isagoo la dhacay jawaab celinteeda caalamiga ah. Dhanka jilayaasha waxay la kulantay William Smith oo ah actor American ah, ahna fanaan, iyadoo isaguna uu la qaatay kulan aad u cajaa'ib oo soo jiitay indhaha caalamka. aad baad ugu mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Fadlan haddii aad muuqaalka ka heshay like saar, sidoo kale haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe saar, taabana gambaleelka si uu kugu soo dhaco muuqaal walba aan soo dhigo.